سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saaxiibada qiimaha badan loo kusoo dhawaada koorsada html oon si taxana uga baahino kanaalkan. waxaynu qaadan doonaa casharkii 11aad inagoo ku baran doonaa laba taag oo muhiima insha allahu tacaala. taaga koowaad waxa uu noqonayaa html mark you text. waxa weeye inaad qoraalkaagii socodsiiso, yacni qoraalku uu dhaqaaq sameeyo, isla markaana aad xawaaraha amaba speedka qoraalka aad kor u qaadi karto, hoosna aad u dhigi karto. taagan waxaa ka faa'iideystaa website-yada soo gudbiya wararka, waxaanaad in badan aragteen shaashadaha telefishinada qoraal soconaya. html mark you waa taaga saamaxaya markaa inuu qoraal ku socdo. taaga labaad waxa uu noqon doonaa html text alignment. text align waxaan filayaa inaad aragteen intiina isticmaasha programyada office-ka, markaa maaha shay cusub. waxa weeye haddii aynu fasirno inaad qoraalkaagii geyso bidix ama midig oo ay soo raacdo bartamaha. raridda aad ku sameynayso qoraalka ayaa loo yaqaanaa text align. waxaynu tus oo taabsi u sameyn doonaa labadan taag laabkooda inagoo aadi doona page-kii aan kusoo sameyn jirnay casharadii hore. waxaynu joognaa page-kii notepad++. halkan waxaynu ka furaynaa taaga loo yaqaano mark you. waan xidhaynaa, xoogaa space bayn baxaynaa, taaga laftarkiisii ayaynu xaggan kasoo xidhaynaa mark you. qoraalka halkaa dhexe ayaa lagu qorayaa, bartaas aynu ka bilaabeynaa qoraalkii. markaynu qoraalka qornay ee aan dhamaystirnay, halkan waxaa ka xidhan taaga loo yaqaano mark you, sidoo kale halkana ka furan. bal hadda aynu eegno oo kusoo kicino browserka Ctrl+S. qoraalkani waa qoraalkii aan kusoo sameynay casharkii 10aad, isaga xaggiisana hoosuu kasoo baxaya. waa kan qoraalkii, hadda fartiisu waa madow, way yaryar tahay, halkuu marayaa malaha color. halkan waxaynu ka furi doonaa taaga font si aynu ugu sameyno isbedelo. font xaggan u dambeysana waynu kasoo xidhi doonaa si uu amarka ugu dhaco intan oo keliya. halkan ayaynu aadaynaa sidii caadada ahaydba. waxaynu furi doonaa amarka style oo aynu waxyaabo badan kusoo bedeli jirnay. style equal color laba dhibcood white baynu ka dhigaynaa colorka, aynu kusoo xidhaynaa calaamadda. sidoo kale fartiisuna waa yaryarayd, waynu waaweyneynaa. font size
laba dhibcood ilaa 20 aan ka dhigno px ta waxaan maleynaya hore wayna soo arag waxay taagan tahay pixel qoraalka ayaa la siiyaa control s waxaynu ku laaban doonaa page-kii aanu soo refresh gareyn doono akan qoraalkii midab cadaan ah buu qaatay intii horena waxaad moodaa inuu ka waaweyn yahay bal tagga mark u isna waxaynu ku sameyn doonaa isbedelo qoraalkan hadda qunyar ayuu soconayaa xawaarihiisa ayaynu kordhin doonaa sidoo kale barta uu marayana waxa laga bedeli karaa background-kiisa mark u-ga aynu isla eegno isna taggii mark u waa kan ugu horeyn background-ka qoraalku maraya ayaynu bedelaynaa bg color equal 2 quotation waxaynu ka dhigaynaa background-kiisa blue control s aynu ku noqono page-kii oo aan refresh gareyno waxaad u jeedaan hadda inuu qoraalkii marayo background blue-ga oo aynu soo siinay taggii mark u-ga isbedelada aynu siinayna way badan yihiin halkan uu qoraalku marayo aynu height-keeda kordhino iyo inaynu qoraalkan socodkiisa bedelno bal height-kiisa ayaynu kordhinaynaa halkan baynu ka baxaynaa waxaan leenahay height equal waxaan ka dhignaa 60 baan dhahno px control s refresh aan idhaahno page-keeni height-kii meesha qoraalku marayay way weynaatay qoraalkiina xagga sare ayuu tegay marka si aan isu leekeysino background-kan iyo qoraalka farta ayaynu waaweynaysiin doonaa fartu 20 ayay ahayd 50 baynu ka dhigaynaa 50 control s refresh waxaad u jeedaan hadda inuu qoraalkii iyo background-kii isla ekaadeen qoraalkina uu si fiican bartamaha u marayo waxaynu eegaynaa oo kale inaynu qoraalkan xawaarihiisa kordhino tagga mark u ayaynu ka kordhin doonaa halkan ayaynu space bixi doonaa waxaynu qori doonaa amarka loo yaqaan scroll amount equal 20 ayaan ka dhigaynaa control s qoraalkiinu hadda sidii hore xawaarihiisu ka badan yahay ayaynu jeednaa uu degdeg ku jiro haddii intaa aad u baahantahay in qoraalkaagu kasii xawaaro batana waad kordhin doontaa tiradan halkan 20ka waxaan ka dhigaynaa 40 control s refresh ayaynu leenahay qoraalkii hadda waad u jeedaan xawaarihiisu inuu aad u dheer yahay bal aan laba akhri karin oo qofku ku khalkhalayo marka xawaare dhexdhexaada oo saamaxaya in dadku akhrisan karaan ayaad ka dhigaysaa tagga kale xiga waxa weeye html bal horta qoraalkan haynu xawaarihiisa yareyno kan baa noqday mashruuc 20 kii hore aan ku celino control s refresh ka hadduu caadi yahay meelahan oo kale ilaa 20 iska fiican tahay dadku way akhri karaan tagga kale aynu u gudbaynaa waxa weeye tagga ah html text alignment oo ah qoraalkiina hadba meel geyso ama left ama right ama center intaba waynu isla eegi doonaa marka intaa yar ee dhexe ayaynu soo koobi gareysanaynaa qoritaankiisu waxoogaa waqti ayuu qaadanayaa videoguna wuu dheeraanayaa waynu soo koobi gareysanaynaa halka markiiga hoostiisa ayaynu imanaynaa waxaynu dhahaynaa br row samee hoos baynu u degaynaa waxaynu furaynaa tagga b oo ah paragraph space baynu bixi haddana paragraph baynu halkaa kasoo xidhaynaa
qoraalkii aan sidanay labada b dhexdooda ayaynu dhigaynaa control v. amaradan hore ku jirayna waa iska saaraynaa dd. halkan sidoo kale waxaa ku jirta dt. waxaynu ku bedelaynaa br breaking row samee br. okay. taagii bdu xaggan ayuu ka furan yahay, halkana waynu ka soo xidhnay. marka taagan laftarkiisa waxaynu ku samayn doonaa isbedel inagoo colorkiisa iyo fontiga awoodiisaba kordhin doona. isbedelka hore aynu kusoo samaynay fontiga hore ayaynu soo copy garaysan doonaa control c. halkan baynu ka furi doonaa taaga fonti control v. halkan fonti ahayd v baa ka maqan, f fonti waa ka. halkana waxaynu ka soo xidhaynaa taaga fonti aynu soo copy garaysanay. markastoo aad taag furto taagiisa kale waa inaad soo xidhaa. okay. aynu xidhnay. haddaba taaga aynu soo xidhnay fartu waxa weeye 50. waynu ka daynaynaa, waxaan leenahay 25 control s. halkan 0 baa raacay, cafwan iska baabiinaynaa 25 caadi hadday tahay. taaga b ayaynu leenahay qoraalka ku dhex jira waxaad noo dhigtaa right ama left. halka waxaynu ka furaynaa taagii loo yaqaanay style equal labada quotation. waxaynu leenahay text align laba dhibcood meesha aynu geynayno qorayna. hadda waxaynu leenahay left labada dhibcood ee kale aynu kusoo xidhaynaa control s. waynu soo kicinaynaa xagga browserka. waa kan qoraalkii wuxuu jooga hadda qaybta leftiga oo xaggan baa leftiya, qaybtana waa right. marka bal right baynu geynaynaa hadda qoraalkan gebi ahaanba waynu soo copy garaysanaynaa. waxaynu bedelaynaa waa right oo keliya control c. hoos baan u degaynaa breaking row baan leenahay breaking row. halkan baynu kusii deynaynaa qoraalkii aynu soo copy garaysanay control v markaynu dhahnay waxaynu bedelaynaa halkaa left ay ku qoran tahay oo keliya waxaynu ka dhigaynaa right midig. sidoo kale colorkiisana waynu bedelaynaa casaan baynu ka dhigaynaa red control s. qaybtii browserka ayaan refresh garaynaynaa, hoos baynu u soconaynaa. waxaynu jeednaa inkastoo aanu si fiican u muuqan qoraalka casi inuu qoraalkii aynu colorka casaankaa siinay oo xaggan ka soo baxay. waxaynu geyn doonaa centerka inuu bartamahan ka bilaabmo meelahan. waxaynu tegi halkan hoos baynu u degaynaa taagii br baynu samayn doonaa breaking row noo samee br. hoos baynu u degaynaa qoraalkii markii hore aynu soo copy garaysanay halkan kusii daynaa control v. waa kan qoraalkii left buu ahaa, waxaynu ka dhigaynaa center. markaynu ka dhigno colorkiisana aynu bedelno white buu ahaa, waxaynu ka dhigaynaa black control s. browserkii baynu ku laabanaynaa, way refresh garaynaynaa. waa kan qoraalkii aan nidhi centerka nooga bilow uu halkan ka bilaabmay. halkana kamuu bilaaban, halkana kamuu bilaabmay, laakiin bartan ayuu ka bilaabmay. waana halkaynu amarka ku siinay inuu ka bilaabmo. saddexdii qoraal ee midna uu ahaa lefty, sidoo kale right iyo center, inay mid waliba halkii aynu ku amarnay uu ka bilaabmay. labadan taag waa laba taag oo muhiima, inkastoo inta ugu badan lagu isticmaalo CSS-ka. haddana waxaa muhiima inaad HTML-ka kusii barato. labada taagba waa muhiim inaad samayn doontaan laabkoodana waan rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.